كل هالكن أنا كتميها كسمها برصاب كقول روح نسقوني إنه كقبلنا تعسيدي شلكي حالي دعي ها قارقة نوعي صلينا هذا محوها دخان وجامعة كسوق هذا أرضي استمرها أنت أصل حق مقالة السعودية قارقة سرنتي سفاس بدو سعوني آد بوسعوني صدر الشيء دور قاري بهاي لاست حقاري لا فرقاري ويصيرين يستوى الصعدة مركي وحوجا جامعة كسو أيو يصير ملا باس لين عكداف بيصير بابورتي كلمة خار كم كي كحجي بيصير لين عكداف دبنا قاري كلو أصلا حقن كيجي أيا كيجيمي كبعدنا هذا الدعوة وحكب حي وضد كب حي كل بالو بربوتشري كبعدنا قريب وكل عاي قارق عسيادو على كل حال إلا تدوقف آدنا وررنا تدوقف تدوت أرضي بصارنا وأنفلين وجامعة هايم بديد وأرضي دي جامعة اللي جنسي مركا واحد انتي لهاي نحرست جناها كورابية لبك كم ذا أي انتي داوعنا إني أفريهم من شعرهاي عبد الرحمن أحمد محمد طاهر أيها حميد كان لبعضنا وحوهاي دنتي دمشقة عبد الرشيد أحمد دولال بوها إلهي إنا أرضي داس جامعين تاس دي وحي هايين ورق فنتي القصة طبعي بهايين جامعات دي كتيرين دي إلهي لها وانا كحيستي إلهي لها باك حيستي وانا لك ردنبين يا وانا لك الهرين يا وانا دي عد باق نقونا يسمى جرتو إلهي أول بدأ أبورتي bay u noqdeen marka runtii dhalinyarada gaadiidka wadata inta badan runtii waxaad moodaa inaan mas'uuliyad badan saareen oo jinkan uu dusha ka saaran yahay ama daabadan uu dusha ka saaran yahay ama uu wado inay wax dili karto qaarkood dhalinyarada waxaad oranaysaa war maraa ma garanayaan ba ayaad oranaysaa qaarkood inkastoo gobolkan ay ku badan yihiin bahashan yar la yiraahdo fits bahashan yar la yiraahdo tigta ay aad ugu badan tahay runtii dhibaato aad u fara badan ay ku hayaan muxuu ahaa dadka iyo bulshada ay ku hayaan dadka wadana waxaad moodaa in loo xulay oo waa dhalinyaro miiran oo aad u yar oo dhalinyaradii dambe weeyaan runtii wax mas'uuliyad qaadi karaaba runtii way ku yar yihiin aad bay u yar yihiin qaangaar way wada yihiin laakiin haddana dee qaangaarka maanta jooga waxaad moodaa inaanu hayn inaan mas'uuliyad saaran inay iska yar tahay baad moodaa dhalinyaradan dambe marka runtii aad iyo aad baan uga xunahay falkaas ama shilkaas walow ay xaq tahay geeridu haddana geeri naxdin laba ahayd waan ka tacsiyadeynaa eheladii ay ka baxeen wiilashaas iyo qarankaba dhalinyaro soo koraysay ahayd oo lagu soo tabcay bay ahaayeen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxeen ilaahay waxaan ka baryeynaa in awal khayr qaba ilaahay ugu bedelo halkay ka baxeen kuwa dhaawac ahna ilaahay uga dhigo nabar sahala ama nabar xaq dareen ilaahay uga dhigo ilaahay ka rajaynaynaa dadweynaha gobolka Togdheerna waxaan ka codsan lahay waliba dhalinyarada gaadiidleyda nooca yihiinba waxaan ka codsanaynaa in ay muxuu ahaa in ay ka taxadaraan oo maadaama magaaladu iyo wadooyinku had iyo jeer ay iska cidhiidhi tahay oo ay xogaa cidhiidhi tahay mar walbana wadooyinkii waxaad moodaa in aynu inagu dadku ay wadooyinkii iyagu ay dhisteen ayaad moodaa oo pedestriankii ama meeshii wadada dhinaceeda dadku marayay waa la wada dhisay dhismaa wada cidhiidhi ka dhigay oo qariyay runtii wadadii waa 5 mitir iyo 6 mitir wax aynkaas ayaaba wadadii dhamayd ama 4 mitir baa waan oran karaa meelaha qaar ayaa la isugu yimi marka dadkii soconayay iyo gaadiidkii maadaama wixii wadooyinka ay cidhiidhi nugu yihiin waxaan soo jeedin lahaa ama aan ka codsanaynaa dadweynaha siiba gaadiidleyda inay ixtiraamaan iyadoo wadada cidhiidhi bay haddana had iyo jeer wadada 4 mitir ama 5 mitir bay haddana baakin qaarkood dhigtaan muxuu ahaa oo gaadiid badan ay baakin ka dhigtaan marka waxaan ka codsanaynaa ama soo jeedinaynaa in ay ixtiraamaan wadada
oo ciriiriga ay tahay hadday haddana baakin ku darsadaan oo ay haddana ku baakin gareeyaan baabuurta iyo gaadiidka ay dhibkeeda ay leedahay dadkii iyaba isugu yimid gaadiidkii baa isugu yimid wadadii oo ciriiriya runtii kulley taasina marar badanna waa laga hadlaa oo muxuu ahaa taliska guud ee ciidanka booliska siba qaybta nabadgelyada wadooyinka ilaa taliyaha ciidanka booliska wasiirka arrimaha gudaha dhammaan madaxda qaranka inta badan way soo noqnoqotaa arrintaas oo way ka hadlaan isticmaalka wadooyinka iyo muxuu ahaa sidii loo fududayn lahaa dhaawacan badan iyo shilalkan badan ee imanaya had iyo jeer iyo qaybaha wadooyinka sameeya hay'adda wadooyinka walow intan dambe aad wadooyin fara badan in ay muxuu ahaa laynoo sameeyey oo ay runtii horumar badan oo xagga wadooyinka ay jiraan haddana weli wadooyinku dee waxa weeye burbur badan iyo dee wuu jiraa tii la sameeyeyna dee marka si faasa loo maro waxa weeyaan dee dhibkeeda ay leedahay taa laftigeeduna dee dhibkeeda ay soo kordhiso markay burbursanaydna shilalku waa badnaayeenoo burburkaa ugu wacan baa lalahaa markii la sameeyeyna baabuurtii xawli bay ku marayaan marka aad iyo aad waxaan kaloo halkan ka salaamayaa runtii bahda saxaafadda oo had iyo jeer u gudbisa dadweynaha hadba wixii jira oo khaasatan TV-ga qaranka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha kusmaha barasaabka gobolka maxamed oo imika ka soo noqday hargeysa nagaga maqnaa oo isaguna ilaa shalay noo soo guryo noqday isagana aad baan salaamayaa intaas baan kulli ku soo koobaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.